السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي محمد إبراهيم وعلى هيئة شبوري. قلت مصطفى عبد ليش بقول الشغل وحكى هذا مكان معي. أنا هلك دجال بابا كلام أنا هلك فدي. مركا مدامو تاجع هذا يوحنا ربعنا كل مرة. أنتي قلت بيسي هذا ديان كان علي. marka hore Allah naxariisto intii dhimatay iyagoo guryahooda joogaan xabadda lagu dilay qaarna layidhi wixii dilay ma garan maayo marka waxaan rabaa inaan dul istaago dadkaa la dilay intii dhimatay layidhi lama garan iyo intii iyagoo magaaladooda jooga dadkii dilay la ogyahay ee xabadda lagu dhuftay dadkaas waxay u dhinteen horta adiga halkan fadhiya reesaysiya xornimada dareenka adiga kugu jira halkaa la fadhido aad ku diidan tahay in SSC iyo deegaankaagii ee dad kale doonay inay ku dul maamulaan dareenkaasi u dhinteen adiga dartaabay u galay godka waxbadoo lagu dhuftay lacag may doonayn xukun may doonayn in iyaga wax siiyo waxay lahaayeen dhulkan anaa leh masiirkiisa iyo taladiisana anaa iska leh saasay ku dhinteen waa wax xanuun badan runtii 15 sano ay joogeen iyaga iyo qaar inaga naga mida oo la shaqaysanay waxaan joogaa waa ciidan maaha dad shacab saraakiil iyo askar yaa joogta deegaankaas marka taa macnaheedu waa inaan xoog kugu haysto oo askarta iyo ciidamada kugu haysto dadka 200 qof ku dhow ee la dilay waxna leeyahay lama garanayo waxna iyagoo soo jeeda xabadda dhafarka laga dhuftay waxaa dheer qaar kale oo laga daba tegay meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah oo mishin lagu qaarjiyay saalax cali warsame Allah naxariisto qodan maaleeye Sheekh Abdi Naasir Professor Ali Khalid Galay dadkaasoo dhami sida loo dilay kuwii xabadda iyagoo soo jeeda dhafarka laga dhuftoo kala loo dilay ciddii ogi cidda hogeynba afartaa qof hadda sheegay afartuba waxay ahayn 4 qof oo ka damqaday oo ka diir oo mar walba ka hadla arrimaha SSC haddana shacabkii iyadoo raggii fadhiyo maqaaxya ay fadhiyaan qaariyaga lacag ka qaataan yaa dumarkii carruurtii intay kaceen dhagaxa tuureen maanta waxaa loo baahan yahay oo keliya waa taageero iyo midnimo labada waxaan ahayn ciddii wadata ee la timaada iyadoo meesha la tegayso maqlaysanad makafoonka ma haddaamaane waxaan rabay inaan arrintan hadda 15 sano u dambeysay ka dhacisay deegaanka SSC iyo inaan isku xidho 100 sano ka hor wixii ka dhacay deegaanka oo aad moodo inay isku mid yihiin oo isku si u dhaceen oo isku sabab ee u dhaceen nin odaya wuxuu la wadaagay qiso yaro aan rabo inaan
idinla wadaago oo dhacday maalintii deegaanada SSC ahayd xarinta daraawiishta diyaarad lagu garaacay iyo ciidamadii ingiriiska iyo dadkii watay u adeegii ay halkaa mataqaan dadka ku weerareen iyagoo diyaaradahu caawinaya marka waxaa ka sheekeynaya nin joogay markaa oo ilmo yar ahaa markaan maqasho sheekadan haddaan odaygu ila xiriir mataqaan ila wadaagay markii wax kusoo baxaya sababta ilaa haddeer iyo 100 sano ka hor ay sugumidka waxyaabaha sugumidka ugu dhacayaan deegaanka waxaa la oran jiray ninkaa waxaa yihahdaa caaqil maxamuud oo muuse wuxuu yihi maalintii la dukeeyey magaalada Taleex oo u ahayd xuduud halgankii daraawiishta waxaan jiray 5 sanadood intii guriga aan ku garanay aabbahay oo muuse oo ahaa nin dhalinyaro ah oo ciidanka daraawiishta ka mid ah iyo hooyaday iyo gabar yar oo walaasha ah oo iga yareed waxaanu ka mid ahayn kumanaan kun oo dadweynihii daraawiisheed ah oo ay duqeynaysay diyaaradihii ingiriisku ahaa ciidanka ingiriisi iyo qabiiladii raacidiisa ahba wala socdeen wuxuu aduunku yidhi maalintaas aabbahay ayaa faraskiisa igu siday oo hortiisa ayuu sidaa ii fadhiisiyey waxaana daba socoto ayuu yidhi hooyaday xambaarsan walaashii uga yareen annagoo dhex socna dadkii qaxootiga ahaa iyaacii kumaanku qof kor u dhaafiyey ayaa waxaa qaylo iyo rasaas hal mar laga maqlay meel docdaa naga xigta aabbaha inta dhulka intuu dhigay ayuu faraskii la dhaqaaqay meel horteeda ku beegan waa bahay oo faraskii saaran sidaas dib ugu soo jalaacay oo abbaar isha iga buxsaday maantaasaan aabbahay ugu dambaysay wey markuu faraskii la dhaaqaday martana cilinta ku dhuftay meeshii qayluhu ka yeerisay ee xabadku ka dhacay suutay iyo faraskii la qabtay anoo meeshii taagan oo ooya ayaa waxa i soo gaadhay buu yidhi hooyaday oo walaashii xambaarsan hooyaday intay walaashii soo dejisay ayay aniga i xambaartay wuu ka yaraa gabadha mugta maalintaas qiyaamaha ayaa u ekeyd hooyaday waxay ka tagtay walaashii u ooyeysa way isku kaxayn kari weyda hooyadii labadii carruurta ah diyaaradii duqeynayay xabadii dhacaysay dadkii saa u dhaxeeyaacayay waxay door biday inay wiilkiina xambaarsanto gabadhiina ay halka kamida badan maalintaas qiyaamaha yar u ekeyd hooyada waxay ka tagtay walaashii oo ooyeysa waxaan xusuustaa buu yidhi walaashii oo kacaysa isna kufaysa oo siigada farduhu ay naga sii qarinayaan oo inteedana aanu maqlayn anigii hooyadayda maalintaas waa aabbahay iyo walaashaba igu dambeysay dib dambana maarag waa maalinta taariikhda adduunka ii bilaabtay saas kusoo gabagabiyey marka halkan maxaa kaaga soo baxay laascaanood maxaa ka dhacay dhowr weyn ka hor siigada iyo xabadda ka dhacaysay miyaana way keenaa horta sheekada qof SSC oo laga yeelayo jirtu way dhamaatay in odayo hadlayo shirarkii laascaanood ugu qabanay ka hadlaya wuxuu yidhi dhulbahante Somaliland halkaas u dhaafay waa la keli waayay gobonimada gurmatiisa dib oo lagu nimankaa toolkaan nahay ee horgaladaana haddaynu u imanayaan waa Turkiya waa u baahan nahay kama maarano haddii ay gartaan hadday doortaan inay la joogaanna dee wax lagaga beega waa garanayna
أدو فهيسية هاي أدو فهيسية محاضرة نوها كسيوة نوح هذا إلى الله هنا وأنا حالات اليوم حتى البروفيسور من الرواد اليوم حالات المية إبراهيم سوري بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسرنا في الدنيا وتوفنا المحسنين وعلى الآخرة. وحالي وأبويها وأبويها فيه. لكن سبح المهلا. فكرة وسلامية. حبس الكيان الحولي اللي هو يريح الدعاية الحولي فعلها كهذا. كان الموضوع عن القرآن أنا ودي أقول أنا ودي وإحنا ربنا ما قرأ لحظة الحين أنا عن كون رسيو كفتر أو لو قرأ فكرة قرأ فكرة لو تكشف عاوز في أسلام سوري يوم لا وهذا السير فكرة ريها محل مغرب يدو ميريها لما على مرنا يو كفتر من يولي هاي هاي بس مسكونة يعني كثير في السماء. حين السماء يدور المدى بيوضي نحن كي يكوري حلولين شيء هذا بعد السماء ده مرته هاي سو وكاسو روض الكاشتي لما ده السماءين بالغلاوي ده السماء من هانشين بالسماءيلي نحن ما في سبيل سلام وقوم على بحر بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا يفريان لما نتهني تاريخيا عن إهرون هؤلاء علي إسماعيل جرفتي. علي إسماعيل. أنت وحدك يا جرفتي من هذا الوقت يوم السودان كيم يوم إريتريا كيم إثيوبيا كيم ويرسلوا على هذا. أنت ممكن تقرأ حالك الشيء قريب. نبغى نقول يقول واحد نبغى ندري. الكاسة قولي نيجي ندري حاجة علينا. نبغى نقارن حتى ناخذ مواد راسية. لما ناخذ مواد بخاصة تسير مواد أيوه البشرة في مواد ده للجي. ما نقدر ولا كذي. فسير على المواد ما كرفت مواد هذا. ما كان بحنين. نيجي هو ما معلوم إلى هاي مدي كيف من مدي أنا مدي إلى هاي مدي يوم ما في شغل ولا يودي كيف منا إلى ما في أفر موت بحيان تيجي أنا مدي لا أفر موت بحيي إلى ما قاطع ودي حتى قوي الله سبحانه دولة الصومالية يحلون ويحلون بطريقة وضرب بعض ولي التناسل الأسري يقول في ذلك وأنا مفاتيحها نيجي شيء دولة الصومالية كل بني دارو بيحكمها أنفق حكمه والدي لي حرب وين بس هذا المهسي ويلك من خصوصنا waxaan ku gudbayaa kale hadalka wada qabsanayaa dumarka laftiisa ma ilaawin idin wada qortiin qof aan qortaan qortiin iyo oraahna qortaan hadana wadaashina ku jiraawin waxaan ku geeyaa odayaasi السلام عليكم. ما كان يزيد السلام عليكم. كسوق الجليان كشركة ومتحرك كشركة فردها وحفصنا ويا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هل كان واحد مسؤول من درين ولا تنينو يدرين جاعل أيه مسؤول
قفل وهلك فريعة ومجا عاصي أطيس كاسل وحيدتها يقولوا كي ما تدو عاو إلى ولا سامي سمع ولا قمنا بدك اللي بقى واحد ما حقيقة وحول بالي عهور يقدر يرفع يا رسا مركز إلهك أي ما تاخذ واحد متجدد تكتب دول يمكن مركز المرحلة يقولوا عروسة إلها كبري هذا والله هيدين صفة عمل الله والله يا مصنع أنت كنت تصور من سنة وتذكر عليها موقع الولاد ومحال ولد فنوم بيجي إنها كبري مراهن waxa iyaga keligooda waa wax Soomaalida kale oo dhan ay inoo qabto waxaana weeye ummadu sideeda horta rumaante madina horta woosa hurdada uu ka soo toosaya insha Allah rumaante laba goysan wali hadda cid goysanaysa inaysan jirin ilmaha uurka caloosha hooyada ku jira uu yahay لكن وحى لوص لوصو قبلوا أولي ترى الآن يتفارق ومدنا هدي ترى الله كانوا عدو وفكير يا روفا فضل لكن إن شاء الله وحى يقول أمانتي ربما تمر السن وسودوا من إنه مغنيو إن شاء الله وحى جينا إن جدا بالله يسندونين صور يسرع يعين وتطلع على بسم الله بدك تروح أولي ساعات يوم يالك تاجوه دل نسوار أو نيجي باشا إنه حدا ساعمي ومضاهك له ويش غيسني نقول سليسة خدوه كتر جلو وحال سواد ما ماذا من دون كيس ودا نك دون كيس كتير ندون كيس وتوه marka hal yaabin aynaga istayaanay aynaga halka isriinay waxay noqday Soomaali hoggaankeedii iyo caalamkeedii hadii burburku dhacay wuu saameeyay burburkii dhacay wax badan baynu laakiin ka baranayna insha Allah hadaan leeyno ummadda Soomaaliyeedna waxa Soomaalidu tiraahdaa riyo idabali wariyaha indhahooda ilaha Soomaaliyeed Soomaali marka ay mugaadinayno aynaga guryaheena iyo abuureena waqti kalluumaysanayna taariikh waa ogaad waxaanu kala jiraa insha Allah waxay noqonaysaa guul bay noqonaysaa guul insha Allah ما شاء الله رب ما سيها راسي هذا لو كان هذا كنا سيو وكسب الفونكا محمد موسى محمد موسى Absolutely. isku dareen baynu nahay waxaan markaa rabaa laba qodob inaan ka hadlo qodob waxaan kaga hadlayaa jaamiyadaha dowladda ee inagu aynu ka mid nahay qodobna waa salaan iyo fariin u dirayo
dhaqanka reer sool iyo sanaag iyo cayn ee ku shirsan meesha la yiraahdo laascanood ku shirsan fariin aan u direeyay salaan haddii aan ku hormaro jaabiyadeena eero waxaad ogaataan dad badan baa dhacay dadkii dhintay allaha u naxariisto intay dhaawacantayna ilaahay caafimaad khayr qaba ha siiyo inta qaxdayna ilaahay subxaana watacaala ahaa nabad iyo rabaandeed waxaad ogaataan dib badan baa dhacay oo meesha ka jira dhibkaa dhacayna dadka deegaanka jira dhib ku haysto kuma ay filla waxaan rajaynayaa dadkeena jaaliyadaha dowladda jooga inaynu arrintaa qaybta aynu ku leenahay dowladda u dhigayso deegaan ku dhigayo oo nooc walba xaq waleynoo ku leeyahay inaynu si guud iyo miisaan looga u gudano baan idinka rajaynaya insha allah. qodobka labaad waxaan halkaan ka salaamayaa codkaygu gaarana waa rabi lahaa waxaan halkaan ka salaamayaa dhaqanka reer sool iyo sanaag iyo cayn ee laascanood ku shirsan iyo xuqaasha kale iyo guddigii la doortay 33 ahaa horta salaan diiran baan u gudbanaya waxaan u sheegayaa ragga xuqaasha maantito wixii ay ugu taliyaan deegaankaas baa taariikhda geli doona haddii ay ugu taliyaan gobonnimo iyo in ay is-xoreeyaan oo ay ayahooda ka tashadaan hadday taariikhda u gelaysaa hadday ugu taliyaan wixii jiri jirayna iyaduna taariikhda u gelaysaa waxaan rajaynayaa wax wiil ku hayo oo tala ah inay halkaa ka soo saaraan baan rajaynayaa waxaana leeyahay reer sool iyo sanaag iyo inta dalasho iyo dhiig la wadaagtaaba maanta waxay intaa ku hayaan shirka ka socda laascaanoodka intaa ku hayaan waxaan idinka rajaynayaa oqaalay inaad wax loo aayo ugu talisaan ummadda baan idinka rajaynayaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa labadaa kalmood baan kusoo istaagay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما هاي هذا الشيء هذا ايش اللي قصرنا وحنادو نيجي ولا اللهم المستعان سعيد على البلاد. سلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا رجال كان سوري وعوي شرفت له. waxaan isleeyahay intaan in ka badan baa la sugayay waqtigu maalintu maalin shaqaa iyo roobab iyo waxa weeye dad badan baa waxay soo gaari waayey waxaan leenahay ilaahay horta khaatimada iyo midnimada hayna ku aadiyo kacdoonkii carabta oo la ogaa hal wiil buu ka bilaawday tunisiyaan markastana waxbay bilowday hadalka intii raggii horaa yiri aad iyo aad waxaan u hambalyeynaa raggii guddiga ahaa oo baarkiga laascaano laga qabtay waana taageersanahay waxa weeye talooyinkooda sida hadda ku wadaan aad baan taageersanahay dowladda waa la taageersanyahay nimanka sii wadaan waxaan rajaynaynaa ismaduna inay soo gaari doonaan waxa weeye la garageli doonaan ragga guddiga reer dadkeena jaariyadaha sida u sheegay maxamed waxaa loo ka baahan yahay garab istaag shirkitaan ka weyn oo maaragtay ka awaayaan insha allah waa rajaynayna inaan markabsano oo si fiican talada looga buuxsado shirkaana waxa maanta loo yahay hordhac oo waxa weeye waa bilow macnaha waxa weeye iyo taageero guddiga inaan ku taageerno waa ku filan yihiin innaga waxaa layna ka rabaa garab istaag reerka guddiga oo loo qabtay arrinkaas oo waxa weeye maanta beesha dhulbaanta ay u dooratay masiirkeedii inay ka taliyaan masiirka ummadda waxa weeye reer laascaanood iyo buuhooda iyo sanaad intaba marka waxaan leenahay aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa intaas baan ku dalahay waxay aan qaldanay markii shaydaan bay ka sugnaatay wixii aan saxaan aniga ahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا ما حسنت هاي لكل محسوح حسين يا ضياسة كبعد محمد هذا اليرد اللي قلت ثم كما قريا هو هذا المحاضرة كوينا سيو محمد أو محمد
محمد محمود أو محمد محمد أو أو محمد محمود أو هذا هو يعني هذا الإمام هو اللي يعتقد هذا الإمام هو اللي يعتقد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو صح أنت هدتك ما بقولش ما بقول يا هذا هو شيء هذا يروح يجسد هذا الكوين أنا يقول لك أنت تروح اللي ليش بتبى يعني أنا واحد اسمه غطى هذا يقول إلهي سبحانه وتعالى مانتين إن شاء الله تعالى هذا الشيء يا جماعة أنت هذا سويت درجة الدكتور أنت ودي الجوز أنت كل هذا كسوها اللي عالم يعني دلتا من جمهور كان عالم كلها خلي الفرقتين وكل وقراءات كلها أو شركة عليه درس وقراءات بلا شيء دور الصوب حتى اللي حتى إن الدسكوشن رأي لوجا أنت يسوي كمسير ليش تصل لعقتي يوم دمان عن مؤسسات كي يسوي waxaan isleeyahay marka dhammaanteen dayac tiro badan ayaa halkaas intii ka jiray hadduu ahaado mid maamul iyo hadduu ahaado mid dadka iswadaaga ah yani hawlahaas ay quseeyaan intaba marka waxaan isleeyahay dayaceenii inaynu hadda dib ka socono oo isgaranno runtii guul weyn ayay tahay biniaadan baa leeyoqol waxba leedaa laakiin muhiimadda waxaa weeye inay wax toosaan yani insaanka oo dhan waxaa la yidhi aan ugu gafaa waa khabar oo ka dhaca لكن إنه خاطر يتصل على طرق استوسيو أو شرفتيس كرامتيس يدرس المسالح ديس أنت ما إنه يلاليو على سيده وكهذا مصطفى عليه أما دي لك كنا شو مصطفى أنا جينا يا إنه يهودي تاسع من كفله عيد يوانا يباركتي تبع إنه كفله وعلى يا مركب يعني هاوشا كسوعة دور كسوع هاوكنتي أقولس dadka deegaankaas ku habsatay horta intii ku dhimatay ilaahi subxaana watacaala ha u naxariisto inta ku dhaawacantayna ilaahi subxaana watacaala ha u boogayo inta hadda culayska iyo hawsha ay kor saaran tahayna sida ugu fudud oo ugu kala badan oo masaalixdooda ay ku jirto ilaahi subxaana watacaala ha u waafajiyo taas hortii dasin dacaya uga baxayaan waxaan leeyahay runtii waalayaal hawshu cidda ay ka go'do وأي كهرباء وأي كهرباء إنتنا وإنت لفكر أولا من هو بس نشوفني على ما يمرك يسكت راشو يهدر يسكتوني يقول يتناول يفكر يطلع إنت وعلى السيف أي كرب أما هو غير كرب وهدوء دفاع كرم كنت أنت كباب حسنا إنك حاول في عام أي صعوبة إنسان ورأسن وكم وقت هذا الجول كي المدار ضد في ديجان أي كرتين إن أي أنت مسير كذا أي إمبلنت كيستاجان مليون هون الدين أنا أقول يا شرفت أنت كذا بس إمام دون هذه الهاي وعن سلام مركب وضياشة يو إن تفكر القطين أو بدي جاء فكرة يتروي كيسوي شديد فتمام وأنكم تعرفون سنة إن شاء الله تعالى وحاولوا هنا يقولون هرمة وإذا كان سكرتنا إلى سبحانه وتعالى الله يقدر أن نروح سناي قرينا وصل عيالنا إن شاء الله تعالى وهذا يوم الشركة عاود تروتي إنه يعني هذا يكون مرة إنه حبلون أو إنه الأولاد يعني كعلامات يرى هو القلب في عن سبيله إنه كنت داريها إلى آخره لكن الشركة تاجر في عقل هالكاس أوبانتاي يعني الشركة هذا هالكان عاوي على أمم بدونية بس وحوي إنه نبغى إصبرنا حوشنا أن نقولونه هذه إلى هاي المهم سفي عنا لسكوا بابلون أو هي طلع يفرسمه إن طلع حوشنا سووا بانتاي قاعد في عليه إن شاء الله تعالى تاسو أنا بقى عشان دوما كمان أنت أي قصيصو ملك ساتشو إن شاء الله تعالى وعن ألف سلامية وعن ألف سلامية اسمها قول صوب
oo runtii hawl tira badan inta aan xogta aad baan la socday runtii inta wax bilowdaan ilo dadka si dhiib wala socday oo aad iyo aad u dhowaa xoolaha ayaan ka mid ahaa waxaan marka runtii aan ogahay wax badan in la qabtay aad bayna runtii ay ugu maaragtay ammaano yihiin waan u mahadcelinaynaa waan u ducaynaynaa insha allah taala dhammaantood waxaan leenahay hawshaas aad wadaan sida odayaashii ugu horreeyay bay yidhaahdeen hawsha wadaan insha allah waa ku taageersannahay halkaas iyo meelka fiican insha allah waa rajeynaynaa haddii laayno waxa wixii annaga looga ka baahdo dadkeena jaaliyadaha dibadda ah ama ha ahaadeen Sweden Scandinavia ama caalamka kale dadka oo isku fakara in halkaa caawa joogta يعني waxay xambaarsan tahay inta kala xambaarsan tahay insha Allah taala waxaan nooga talagalnaa khayr iyo wanaag iyo wax u baahan inta waa diilahayd muhiim iyo inta waan rajeynayaa inta aad mahadsan tahay hadda waxaan rabaa inaan qaybta dhalinyarada laakiin hadalka waxaan rabaa inaan ka horeysiiyo hadda waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo guud ahaan dadkii halkan iga geeriyooday sida dulmiga sida xadarada lagu dilay inaa ilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay waa naxariisto intii dhimatay intii dhaawacana ilaahay ha shaafiyo way ogtihiin qof noloshiisa maya danta meesha isku yimid waxaan kaloo rabaa inaan ka cudur daarto maanta maalin shaqay ahayd dad badan baan imaan laakiin waxaan insha allah taala rajeynaynaa marka kale marka ku xigta hadda dad badan aan soqoon iyo tabaabul iyo tashi badan aan rumaynaa sameyno kale ee ku xigta iyo waxyaalo badan marka intii aan kasoo qaybgelin way mahadsan yihiin kolley uu gaari doonaa intii kasoo qaybgashan aad baa mahadsan tihiin waxaan rabaa inaan hadalka siiyo weli Cabbaas oo aad u dadaalay oo xaaladda deegaanka iyo maxaan ku raayay warbixino fara badan bayna Syria kabacdi Fahad xasan kawle ku xijinaya kabacdi qaybta dumarkan garaya kusoo dhawow بسم الله dad badan oo mikrofoonka loo dhibay waxay ku horeeyeen عليها ka hadaan laakiin uu mikrofoonka waa isbaranay بسم الله الرحمن الرحيم وبينا السلام على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام marka koowaad waxaan tacsiib iyo tiraayo u dirayaa ehladii iyo qaraabadii dhammaan ummadii Soomaaliyeed wiilashii iyo hablihii shuhadada ahaa ee ku shiiray magaalada Mas'aaro waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun taalooyin baa leedin isi doonaa runtii baal dahaba ayaa taariikhda gashay waxaa weeye especially wiilasha iyagoo calanka Soomaaliyeed calanka quruxda badan ee daraawisheed saaray xabadda lala dhacay waxaa weeye waxaa ilaahay u naxariisto taariikhda xusi doonta wiilashaasuna haddii alla kula wiilal iska dhintay iyo gabdho iska dhintay oo iska dhaafayna cadaawadda arrintaasi abuurto waa cadaawad waxay noqon doontaa kuwii dambiyada geystay caruurtooda ay waxaweydiyaal uga tageen qodobkaas waa qodobkaas insha allahu tacaala waa xasuusanahay runtii dadka dhalinyaradii iyo hablihii raggi dumarka connection fiican baa naga dhexeeyey raggi qaar ka mida dhalinyaradii shahiiday connection baa naga dhexeey markii ay hawlahan iyo hawsha wadeen runtii waa wada xiriir jireen nasiib wanaag caawa ay hurdaan dhulkooda baa lagu laayay deegaankooda lagu laayay laakiin balaayada dambeyn doonta taasaa u daran insha allahu tacaala markay tacsiirka halka imaado waxaan soo dhaweynayaa jaaliyadda Soomaaliyeed especially beesha marka koowaad daarood afka waan ku ballaarinayaa harti dhulbahante fiqashini ee halkan isugu yimid Soomaaliya intii kale waa soo dhaweynaya mayhi nin warkiisa la dhulunta mayhi nin halka baasha u dhigaya aad garanaysaan baa runtii ahay especially deegaanka soo dhisanagacay ummadda Soomaaliyeed in badan bay indhaha ka duulay oo waxa weeye dhagaha ka furaysatay qayb waxaa loo daaday inay indhaha u soo jeediyeen oo ay indhaha badan ku hayaan deegaankaasi 30 sano ee dowladda Soomaaliyeed burbureed waa halka dowladnimada Soomaaliyeed ka burburiyay wey inta gacanta ku haysa ee le no gooni gooso wax Soomaaliyeed kala goonayo ma jirto waxa weeye dadka reer soo dhisanagacay wey
عدة حاول الناس تقول عدة من الناس الصومالية سوحي الصومالي بريش كاسولي سراي عين باعين كاس ورخص البدن الصومالية سوحي هدين الجروسية اللي بيحوا أيوه هدين الفهم وأيوه وقت ما ما دون إن شاء الله تعالى ما دون وحنا كنا تاجروا أنا قدره قلت إذا لقينا بعض المجال الله سبحانه صدق قلت إذا فبشرني بالبهانتين قلت يقول إذا تشجع لنا لو غير مكان كأساسي يجنا وتاجرنا وحنا يحل قوام بلدي كسوية واحد كلمة جد حاول النبض يقرأ واحد بحيره نبض وركي الدال وحنا كسوية هو دجال دجال كلو بس فيه عدل عدل إيش هذا ماليشيات كعدل إيش هذا إيش الدولار كقاوم كويس دول يدجال الحين والأكتيفين وحقيقي كل كان حكومة شو كلام ذلك الوحي وشوفين أو ذلك وحوي تقالي إلى روش الصندلات وعالم كبير سودا ما بقول يسدي دنمارك UK يو أمريكا هوش اللي موجودة يجي أنا ولا يقول أنا ما أقدرش ولا بصيو أنا ما أقدرش ولا بصيو هواية أنا كلا بصيو ولا بتكلم ولا بصيو ولا أيها ذلك اللي بقول يا أيها ذلك يقول أيشان تاسوا صعب ترى ولا صعب دوتا أنا دبوا عالم كلا بقول دونا بيجتو تاسوا صعب ترى absolut صعب ترى أنا وصومالي وسكوا قلنا قلنا بس أنا حالة يهدر وحالة تقال بكسبة هاي دتكو وكان حيان مجال جوده هذا جيل المحسوب هذا كعنت كويسة أرجع حسابه ولا ولا حرية جوده مجال شعب كيان كعنت مجال كويسة ديجانا ده هو سمعته كربان له حضور له طلع له ولول له سحدان له بوع له ماليشيات على قاطعياشة هاي هرقلها يجنا ولا بس في شعب كعنت هاي صوب الشيء وحكيت لك عن كصوماليين عن كتراويش خاطر السلام بشار شعب ومهزين جماهيرته حقوق وطنيتها حقدرك ومهزين وحقدر كويه مركز كويتشوغا ومهنا نجي تاريخ ذا يحس دور إن شاء الله تعالى هذا من هاي جالدي هل كان كسبان رأيت بشيء البهانت يهانتي يهدي على كل يعني الصومالي أنا تعرفه deegaanka waa deegaan aan wada leenahay deegaan bulbahantekeeda lagu eegi kara maaha hadda marka uu qaybsi noqoto iyo waxa weeye madfac ama in waxa weeye haddii la guurayaa wax soo saarka resourceka la qaybsanayo hadda waa loo soo kala hordaynaya intay dimeeray furintana sidaa loogu badnaado marka furintana joogaan oo baashu dagaal taagan tahayna hadda intay dimeeray waa imaanaysaa waxa weeye deegaanka inuu cadawga ka difaaco وحاولي أن دفاعنا وأن دقائق كل دفاعنا وأن مالكنا يو أرتينا يو بريوف كنا كل دفاعنا وهي فكرة وقت جديدة إدوار الساعة كمشتنا ده كان إدوار الساعة كمشتنا وقت الصوماليات وعارفيا يقول ميديا إسبايستي ورر بين أبور ملها وركسينيا يتاريخه عن شرين لما كنا يسد حوالات تاريخ أصول الغرب دون مرجوكو تاريخ هو قرنطاي tan hadda joogtana waa mid isqori doonto wey inaan cid xoog lagu haysan karin way caddaatay 15 daqiiqo mase 15 daqiiqo ayaan ka xishoonaysaa 15 daqiiqo gudahood magaalada Soomaaliya ka saaray awood iyo dhaqaale ay meesha ku joogo dhama jirtay laaluushiisa dalaga dadka ay siin jireen ay ummadda waxa ugu kala qiimo jireen taas waa dhamaatay horgalada waxaa weeye fariin aan dirayaa naftu hadday gacanta soo dhaafto toobada ma aqbalo marka cadowga deegaanka laga sifeeyo amba way kan masuulkiisa مسلم نعم بلا وقار thank you ما شاء الله إن شاء الله تعالى ديجان كبيرة بكامورة سوري سناك ومن الضوء وعكسة قريب وعكسة وقريب وطلع أصلا على الصين بس سناك مرة الفيديو وشدك موي تبحث وشل هذا الليسان almost بقول كيف ستيري شبه دقيقي
oo magaalada Filadelfia iyo Baran iyo Laasqoray magaalada Ceelgaabo boqolkiiba 60 dadka reer Soomaaliya ay baa degan ceel afweyn oo kulay soo loo afar degmo boqolkiiba 90 waxaa dadka reer Soomaaliya ayna warkeeda wadaa oo gobolka Danaca marka maamulka deegaanka loo dhisi doono marka wax laga dhudhumanaya maamulkaas waa imaan doonaa wadnaha farta ama ku haya ama dhudhuunta ربنا ويسألك يا إن شاء الله وحنود يا جروني تيار وحنود يا جروني أنا على وسط أنا وحنود يا جروني عيد كستوكل كي وين عارف ما كان سهل وحنود جروني ما مو أوليها إذا يرجع وقوله إن شاء الله أيضا ما ستين إن شاء الله تعالى اسمنا وحنود كبر الجيوب موقف ودنا يا شعب وتذكرسي كعلم كليرا إيه لو تجيني لكن دون تاسوان سكرا كذا ما كنا لا ما زياسة ما شعب شخصيا إيه لو تجيني وكمان إن شاء الله إنه ما يبغى إنه ما يبغى يقول شوفا لكن أنت كريم وفرصة تساعد ينضل كتوه ما يبغى شيء كل ما نيجي قبله دمتي كلامه حوي قبله يا شيء اليوم أنا مش بنسى أنا يعني يمكن تقولوا الدنيا بتشوفه يوم نقالها بحية حوي الصدق يكون هاي قلب تلو شوفه نقالها هنا بحسي سوي كمان شرفت إني أدري نحن دفاعوا لنا يا سوق نقالهم إن شاء الله تعالى مركب وما سديدين خير بدل يجيب شيء إن شاء الله تعالى قولي قوليو سوي سماج يعني سوي سماج يعني درس إن شاء الله تعالى وين ورطة كلها كده أما صدق runtii kacdadu markuu bilaabay meel fiican buu gaaray shacabku waa dhiiradeen waxaa weeye nin hal naas sii gaara qorigiisu maanta wataa ugaala jooga ama hawd jooga waxay diyaar u yihiin difaaca dhulkooda iyo deegaankooda waxay la dhudhumanayaan ma aha la isu bareen raguna waa is arkayaan tukarada waxaa la sheegayaa ciidankoodii farimaha badankood buurihii ay saarnaayeen waa ka baxeen hal goob bay ku urureen hal weerar bay isku dayeen qaadaan oo ay gaadma sirdoonka isasi gacanta ku dhigay xogtooda ka haynaa tiradooda haynaa gawaaridooda si ay Puntland iyo wadhigaan deegaankaas in siyaasad ama maamul laga dhigo wax Puntland yiraahdo meesha ku dagaalanto meesha qabiil baa maraya qabiil dagaalku waa dagaal iyo wax siyaasad leeyahay meeshan ninka Puntland jooga xildhibaanka iyo wasiirka iyo kan dalka jooga madaxda iyo kan soo liisanay aan jooga qabiil baa mataanay qabiil waxa soo duulay waa hal reerkaas intii collectionkeeda ku dhex jirtay ciise iyo reer Boorama iyagana waxay sheegay way ka baxeen marka cabsi weyn baa soo fosaartay guushu waa in lacagaha dhulka lagu hayo guushu waa dhowdahay insha Allah tacaala waxaa loo baahan joogta taageera inayna ka daalin dadkeena la darin muxaamalo darin oo aan sheegi mayso qurba ay joogay dalkii laba xusjilaa dalkii waa loo maray meesha meel ugu dhagaaday maaha insha Allah tacaala isku dhownaa qayb walba هذا كنا غنية وكل وكل جود هذا المهزية ولي عباس يسوي إنه الميكروفون قاعد خيو وهم بلا يهنون لكن ما كان له رئيس وهم بلا كنا كرونا المدير أنا هذا رقم حتى لما يقول لي أنا القصة هاي وحنا يوري فهد حسب ولا أيام يوريا بعدنا بسم الله الرحمن الرحيم ودي أحس لا غير سوياش لو بدر يعني
dhalinyarada lagu soo bixiyay bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore ilaahay baa mahadle halkan isugu keenay dhammaanteeda marka labaad waxaan mahadcelinayaa dhalinyaradii fara badneyd rag iyo wasiiras ku jiray ee xafladda inoo soo agaasimay axmed iyo mujaahid cabaas kama yidhahda waa mujaahid cabaas weeye magaciisa waa ina saxo weeye aada iyo aada buu mahadsan yahay guurta koobaad aada bay mahadsan yihiin iyana oo runtii la-aantoodaan waxbay noo suurtoobeen ilaahay ajarka xasanaadka idinku daro waxaa la yidhi maxaa hariba loo hadlaayo anaa haray looma hadlo hadalkii intii balid waa gaaniyey laakiin waxaan rabaa inaan 2-3 qodob isu taago qodobka koowaad waxa weeye marka koowaad allah u naxariisto in ilaahay u baranay intii ku dhimatay dhalinyaro dumar iyo culimada isugu jiray in ilaahay qabrigooda waasiiyo waxay ahaayeen mushaahidiin waxay ahaayeen shuhada dadkoodii ka baxay dhib loo geystay diiday bay ahaayeen 15 sano 150 qof dad ka badan ayaa la asxaana lagu dilay hal qofna weli looma soo taagin taa macnaheedu waxa weeyaan bil kasta qof baa la dilay bil kasta ilaahay soo taago qof baa maqnaa oo lagu soo maqnaa ummadaas oo dhan ilaahay waxaan u baranay naxariista ugu wareejiyo ta koowaad waxaan taariikhda maana dibigii celiyo 1991 markii beelihii waqooyi isu yimaadeen oo ay ka soo jeesteen dagaaladii ee la isku yimi horta meel lagu heshiiyey in Soomaali laga goo habeeratii ma jirto garaadadeedii siyaasiyiinteedii meel ay ku qoran tahay habeeratee Soomaali baan ku go'aynaa waxaan ku heshiiyey oo kaliya dadka waqooyi degan inay nolol iyo kuwada noolaadaan barwaaqo iyo nabad waxay yeelan karaan ay yeeshaan Somaliland maamulka SNM naga baxo maqlayo bariyahan in badan baa naga baxa kuma baxayaan naga baxa jibkuba naga baxay ku baxa ugu baxay jibku maanta dadka naga baxay weli soo baxay laakiin waa laga saarayaa xanuunka weli gaarin xanuunku markuu gaaro iyaga dan baxaya waxaan kaloo halkan rabaa inaan ilaawinaan uga mahadceliyo dadka reer Puntland hore waxu wada dhisanay laakiin markii dambena aan ogaanay inayna waxaan hore dhisnay noo suurtoobay waxay ku baahan yihiin horta shacabku inay fahmeen in loo baahan yahay maanta khaatumo in faraha laga qaado abtiga dayna waxaan leenahay abti hana hoosaasin hadalkaa waxba loo tari maayo inaad iska aamustaa lagu qaati runtii hadalkii intii balid waa la yidhi waa mahadsantihiin intaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada fahaad u mahadsan yahay waxaan markan insha allahu tacaala wax raba xasuusiyo waa xoogaha insha allah afka uqaysan doonaa insha allah mar dhow boos bay eegay doonaa xagga haweenka oo lafdhabarta halganka owlnimo dirir u ah la-aantoodna halgankan uusan socdeen ayaan markan u galayaa insha allah waxay la soo dhaweysaan eedaday muxubo oo runtii taariikhda waxay la soo dhaweeyey sacabku waa yaryahay السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم لما نحن كسلام يا لما شكل كسوق بشيء تابع رضا قبل هذا SSC خاتمه سو سراني عين
waxaan u tacsiyadaynayaa dhammaan dadkii ku dhintay dagaalkii laga soo bilaabay Kalshaale ilaa hadda ay u dambayso Ascaanood oo uu ka dhacay suuq aad looga naxo oo aad u farxan ilaahay waxaan ka baryayaa intii dhimatay jannada firdaws ka waraabiyo intii dhaawaca ahaydna ilaahay uu booga dhigo oo caafimaad degdeg ilaahay u soo diro inta dhaxday hooyooyin ah maata ah caruur ah dhibaataysan weli aan maaragtay ilaahay iyagana inuu ku soo dabaalo guusha ay filayaan shacabka dunida gaafaheeda wada jooga ee qof kasta oo damiir leh oo Soomaali ah ama Islaam ah uu dareemi karo yacni magaaladii maaragtay dhibaatada intaa leegahay ka dhacday oo bulshadeedii yacni intaa in leeg loo geystay taa horta waan tiraayada iyo tacsida waan la qaybsanaynaa meel kasta oo joognay inta ummadda damiir kale gaar ah waxaan intaa ii dheer اللهم صل على محمد اللي بابطي انت عفوا بكم رجال ماشي waxaan hadda meesha ka sii wadayaa in gobolka Sool in uu yahay shacabka deegaanka dega fiqishini iyo dadka u dhashay goboladaas oo dhan dhamaantood anoo kala wada saaray meesha doonaan ka yimaadaan ha u bataan cidaas dhulbahantaa ah in ay yihiin ummadda Soomaali ugu nasiibka badan dad baa waxay yiraahdaan afar buurood dhexdood bay degan yihiin aad bay u nasiib badan yihiin aad iyo aad bay u nasiib badan yihiin waayo waxa weeyaan dadkaasi lafdabartii Soomaaliya haddaan deegaankaasi uusan jirin iyo shacabkaasi Soomaaliya ma jirteen baan aaminsanahay waan ugu hambalyeeyaa inay Soomaaliya ku jiraan dad maaragtay ama bulsho dareenka wadaniyadeeda ilaa xadkaan la-eg uu maanta ilaa waqtiga 2023 ee Soomaaliya qof walba qabiilkiisa uu gacanta ku xidhay ama uu u shaqo tagay sida uu doonayo in ay jiraan wiilal dhalinyaro ah laga soo bilaabo muddo hadda aan la soo koobi karin ilaa 1990 laga bilaabo ay calanka buluuga ah godka u geliyaan cid u ogina aysan jirin maanta madaxda Soomaaliyeed kuwa doona ha aad looga naxo oo murugadeeda iskale halka waxaan fariin uga dirayaa maxaa yidhahdaaye madaxweynaha dalka Soomaaliya oo ah Xasan Sheekh Maxamuud waxaan aad iyo aad uga xunnahay anagoo dareenka shacabka reer Sool Sanaagiya cayn laha alla la midaysan oo ama matalaya gabdhaha Sool Sanaagiya cayn in uu maaragtay ku hadlay wiigii hore wax aad looga naxo oo bulshada maxaa yidhahdaaye Soomaaliyeed inta damiir kale ee Soomaalinimada ku jirto ee ummadda tan ama qaaradan toddobada ah sidanka ah damiir wadaniyadeed leh dadka kama wada dhamaanin wadaniyadii kama dhamaanin dadku qolaba meesha doonto hawsha qatagto oo maaragtay jeebkiisa iyo kursigiisa wuxuu doonto ha doonto laakiin waxaa jira dad istiil weli wadaniyiin ah gobolka hawa u bataa reer Sool sababtoo ah cid maanta godka u gasha calanka ya xilligii daraawiisheed ka soo bilow maanta ayagaa jirta cid oogna ma jirto waa ku soo celcelin igana raalli hadalku hadduu bato waan idin raalli gelinayaa wax badan ma sii odhanayo waxaan kaloo halkan aan uga Xasan Sheekh fariintaasaan gaarsiinaya waxaan rajaynayaa in codkaygu gaaro in aad looga naxay Xasan Sheekh Maxamuud oo aan ogahay dadka maanta soo saaray kursiga inay qaarkood ku jiraan dad gobolada u dhashay baan ogahay aan maantana jawaabta ugu diray ay tahay wax maaragtay aysan ka filaynin ee laga filayay isagoo dunida caalamka maanta kubadda aynu saaranahay dunida gudkeeda inuu ku bedelo calanka buluuga ah ee wax qabiil la yidhaahdaa aan adduunka laga aqoonin oo lagu soo dhaweeyo calanka buluuga ee ay hoostiisa wada joogno waxaa jirta in dad badan oo afarta qaaradood ee adduunka jooga ay ku shaqaystaan calanka ilaahay ha xafidee laakiin lagu dumiyo lacagta lagu qaato ka dalka Soomaaliya lagu dumiyo
ودلمي الصوت رأيه أو ما أنت حقي سفرها كدلاعي أنت سبحان خسرة وكان خسر كوبيا بحال ده هاي أنا سيدي وحي كلام كدري وحوها في روقوي يعني بحال هاي dadka soo duulay soo duulay maxaa dhahday anigu caadifadayda caawa waxaan ku soo wajahayaa ku matalayaa ka hooyo Soomaaliyeed wiil kasta oo Soomaaliyeed marka uu dhinto dhaawaca ugu daran wuxuu soo gaaraa hooyada Soomaaliyeed ama waqooyi ha joogto ama koonfur ha joogto ama bari iyo galbeed meesha joogto ha joogto anigoo dareensan maaragtay xanuunka reer Sool haddana waxaan matalayaa gabadh kastoo Soomaaliyeed ama hooyo kastoo Soomaaliyeed hooyada waqooyi ka soo duulaysa wiilkeeda u soo labisay tuutaha u soo gelisay tiri ku duulaas caanood iyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ama deegaanadaas ku duul oo uu ku dhimanayo waan u digayaa aad baan u digayaa hooyada Soomaaliyeed la dareen baan lahayn way igu adag tahay maanta anoo dunida geeskeeda jooga inaan arko wiil Soomaaliyeed oo kale oo islaam sheeganaya ay ismaata dooxayaan wix iyada ku awrkacsanayaan nima siyaasadiin oo ay siyaasad iyo kursi iyo qabyaalad waxan waxay lagu bisidayay ay tahay hooyada Soomaaliyeed waxaan leeyahay wiilkaagaasi anigu Somaliland iyo يعني صراحة أفكار وما صومالي كرا رونا هانتي وحن آمن سرحي صومالي نمو وحن قصوا كرا صومالي نمو وحن رأي خويا لا فكر كلا جدا بحسية أما آمن سرين الجهاد يكون قارن علم كان وح جهاد اللي هذا مجتهد جهاد هو دين الإسلام إسلام كل اسمه جهاد رسول يا عيوة حويا وحن كفر أحسن هاي إلى أبهير وإلى هذين نجبها إلهي هداك قانين حوري إذا كم وضنو دول إذا كم وضنو مال إذا كم وضنو ضد إسداري أو درس أو إسكودقارة أو صومالي أو إسلام بينهم هاي نوجبها دول خيرا واحد دولة اللي يلاحظوا حروف حساب معركة وواحد راح يوقع معركة لغير راح يشوف الموت دولة كان صومالي حركة هاي سبب ما أنت حالة دي هاي يقولين تقول أنا حاجة شفتها marka waxa weeyaan runta aynu isu sheegno dhiiga wiilasha Soomaaliyeed isku dhamaanaya ee daalimka iyo madluumka ah hal kala gaaro oo hooyada aqliga saliimka u ah ama damiir kale ama islaamka ah dhabta ah waan uga digayaa anoo Soomaali ah oo muslim ah ma rabo inaan wiilkaaga ku dulqaado heesihii xabashiya iyo Soomaaliya isu qaadi jireen sanad مرة إن عند ذلك إسلام ورسولك عليه الصلاة والسلام يجارد الإسلام قالين إن عند دخول قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة مرة بين أساعدكم ضمير كي صومالي نبي إسلامي مو يمسنا الحين وحارب دقنينتا وحاربوت لقلي هو يلا صوماليات أما صومالي لان وبدأ صومالي لان تدي كل صومالي لان تدي وقوة كانوا لما على السكول هاوي إنجليز كوتشي حي إنجليز نقبح قبيلنا وينسلوا ذكرنا مالنا ينقاسين ما يقبل صدق يدور سنة dadkaad waalidkoodiyo walaalkood ballaysaa way raxaayeen moogtahay ya dhammaanka waxaan iga gaarsiinayaa markan anoo ka faa'iidaysanaya afnugaal media caawa waxaan aad uga faa'iidaysanayaa inay gaadho xasan sheekh iyo muuse biixi in dhallinyarada Soomaaliyeed ee loo baahanayo maalinaan maanta ahayn oo Soomaaliya ay sirkalkeedu ku jirto gacan cadow in la arko xaqa oo aan la kala badbaadiyo wiilasha reer Sool iyo dagaal bay diyaar u yihiin wayna dhimanayaan hadday dhimanayaan xaq bay ku dhimanayaan laakiin istiin wali waxaan ka naxayaa wiilka waqooyi dhinaca kale ka imaanaya ee aan wax allaale wax ka soo horeeya aysan jirin xuduud uu gaal dhigay gumaysi Soomaali oo dhan oo wada midaysan
يا وأولي الدين هو يسكت دوبا أي أول الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الله سوري وحناد وحنبريين يا وأنا كفرح سنة حي بوشة يا صدق لا معانا الغاية وضياشي يعني قلت ده ما عرفتي كسر على نبضيت الصوت أنا جاي حالا لا يعرفت في عن ونفسن لماذا سكوتوني ذا ولا شركة جهاد كأ ما عرفتي لو سمي يقوي كفر تعب ملينا يا وأنا أحسن ونسول ويننا وحنا عندي بيا حلقة بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي يا ماما ولا أشكر وين هذا الآن بدل ما يشوف مسؤول تاني ما تبغى هو السلام يا رجالتي تصير جهر لي بهذا الكيس وحاليا هذا الودينا ما لما يمني يري أنا كم ودتين لكن هو أنا بعده قدرنا نصير نتابعه حتى على المو مركو هراء ما هو السلام ما هو روحنا حوالي تعصي أدرو تعصي تيرانية لما شعب لو تسوي مقالة العصانات أنت كل ما تروح عليه إلهي أنت كل وعنتنا إلهي هو بقى يا يعني هاي marka labaad waxaan rabaa inaan afkiina ku hadlaya dhammaan dadka meesha fadhiya inaan taageero qodobadii ka soo baxay guddigeena 33 qodob ahaa warso ma wada taageersanin soo ma taageersanin guddigeena sugeynaan bismillah sida ugu dhaqsaha waxaan kaloo rabaa inaan ku mahadceliyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed inta nala dareen noqotay nagala danqatay arrinta meesha ka dhacday foosho xun uu geystay Musabixiyo gruubkiisa leetiinkiisa tala socota waxaan leeyahay malin dad abaal gudi waaya وإذين أبى بودونا إن شاء الله بإذن الله الكريم markay noo gaadho weydii aad u doona abaal bura abaal bada abaal buriga dheeraada insa kaan ugu bedelayo waxaan kaloo rabaa inaan dhaho nimanka meesha jooga culimadayadii cuqaashayadii waxgaradkayadii bulshadayadii dhammaantood way nafis naga baxay inti كل دليل إلهي وانا يوم بواسطة موت وتعيها أذن واعية ولا قرآن بسهول أنا أقول ما ينقى بحر وحنا يروح وسافيا فهو وسافيا سيفه waxaan rabaa inaan ka sifaydeysanayo inaan taageero buuxdo u diro oo aan bogaadiyo dhalinyarada inoo bilowday kacdoon kale meeshuna inay dhalinyarada bilowday waxaan ku garanayaa inay guuto koobaan maanta inta hor fadhidaa ka garanaya guuto koobaan iyo badan yihiin dhalinyaro marka maasha Allah halkaas waxaan leeyahay hore isu wada insha Allah waa gaarayna guusheena waa dhowdahay waa la doogaya yaa la tacroon ayaan leeyahay دمان أنت ماشي فريدة والسلام يا هذا الطلب بس وترجلي سلام مرحبا السلام عليكم ودمباركي حاسة شيء كدري كدري لاسعانو إنا كدري يردا لقيت وقت لاسعانو يسوى على كابلوج عصارية مسكح بسيدول كالوجود هذه مسؤوليات ده حسن الشيخ ayaa la saaraya uusan ka soo jawaabin calanka uu maanta wakiilka ka yahay mas'uulka ka yahay xasan shiikh oo wiilka Soomaaliga ah ee biriishka isku xidha waqooyi iyo koonfur dartii u godgalay haddaadan jawaab degdeg ka bixin aakhiriya adduunba taariikhda ku qoraysa aad baxaysa midnimada quruxda ay leedahay inta yar ee dhulka weyn ka garanaysa والبهانتي وحن ليه ورسولنا
بميل كعنا واختصموا بحبل الله جميعا بين قريش وانت كل ذلك وياي أبدا ما ستين أريد قطوات بكتنا محمد كانوا يريدون إن شاء الله تعالى فيسا إن شاء الله فيسا صدوق هذا صدوق فيسا وما شاء الله فيسا صدوق صعب ما أعرف ولا بنحضر صوتها أوضح دبانت جربها يستاهل إن شاء الله المغلية اسمها مكرة أكبر جمهور السلام هي كالكرياش كصغير بيها تقدر غيرها بظل المنطقة خاطر السلام هي إن شاء الله خلي يتكبعا فالإلهي حتى الحكة ووضع الركب يبقى وعن ماكرة انت تقول أسل المقاسي حيثطو أي نوع حروبه أيانو رجينا إن شاء الله لكن الفكرة بعدها رجينا وحن تأثير في راية القدرية dadkii sool iyo sanaagii caynta laascaanood ku geeriyooday dhalinyaradii hooyooyinkii maatadii kolley intii dadkii iga horreysay intii ay sheegeen iyo in labalaabkeedba tacsi tiiraanyo leh oo aanu kula soconno uurka iyo qalbiga aanu kala gubanayno oo maanta iyaga haysataa ay annagana qurbaha lagu haysato baan aada ugu dirayaa hawada u marinayaa dadka ka tagayna waxaan leeyahay sabir iyo iimaan annagana waxaan leenahay sabir iyo iimaan iyo dadkii tolka ahaa ay ka geeriyoodeen geeridaasi geeri ku dhacday maaha reer laascaanood keliya waa reer geeri ku dhacday sooliya sanaag iyo cayn oo dhan iyo dadka bulshada u dhalatay iyo bulshada degtaba maanta laakiin geeridaasi waxay iiga xumaan lahayd oo aan maanta kasii guban lahaa ayagoo maanta laascaanood calanka Soomaaliya weli ka babanay laakiin maanta farxad waxay tahay hadduu calankii buluuga ahaa ee Khartoum State ka babanayo wasadka magaalada laascaanood yaa iisoo weytay geerina way imanaysaa haddaad gobonimadu diri tahay rag baa nooga horreeyey calanka waan u soo dhimanay waan u soo halganay waana u dhiman doonaa maasha Allah markaa ugu faraxsanahay markaa yani kacaanka kacdoonka ka kacay laascaanood waan ku jiray kacdoonka qulubta kala maqnaa oo ruuxayga ka maqnaa laakiin anigu waxaan joogay magaalada laascaanood waan ku jiray kacdoonkaan ku jiray biyaha dhaaminayay waan ku jiray kacdoonka magaalada laascaanood marka aad baan uga xumahay wiilashaan oo khadka ugu jira ayay dhimanayeen dhalinyarada laascaanood kacdoonkii u bixi waddanka maanta inuu siinaayo iyo muuse bixi iyo muuse handaraab inuu magaaladeeda ku sii wareego oo ku sii misiirku sidii waxay waa maalintii meesha macluum waxay meesha ka xamariso bay macluum waqtigeeda ola jeedo meeshu ku dhanasaday heege buu wixii ismoodaya maantana inay weli sidii tahay